asalaamu calaykum kusoo dhowaada codka ubax caawa waxaa ila joogtaa huda cali banfas oo ka socota ururka heritage somaliland oo ay shaqadiisu tahay xanaanaynta daryeelka iyo badbaadada duurjoogta. huda marka hore kusoo dhowaad codka ubax. aad iyo aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. waxaa caawa sharafi ah inaan ka qayb galo barnaamijka codka ubax oon muddo badan kusoo taxnaa isagoo cod kaliya ah, laakiin hadda aan fursad u helay inaan ka mid noqdo dadka ugu horeeya isagoo muuqaalana ka qayb galaya. aad iyo sharafay tahay runtii. aad baad mahadsantahay, anaguna aad baan ugu faraxsanahay inaad na soo booqato caawa oo halkan nagula caweyso oo aynu ku sheekaysano oo aynu kaga wada hadalno waxyaabo badan oo aan inta badan malaha laguguba aqoonba. dadku waxay kugu barteen sawirka iyo inaad kamarada ku dagaal tagto oo aad dadku usoo gudbiso muuqaalo taariikhiya oo runtii taariikhda gala. laakiin caawa waxaad ka hadli doontaa qayb kale oo taa totally ka duwan. bal horta na fahansii duurjoogta iyo daryeelkeeda sidee baad uga shaqaysaan? aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. oo sida dadkeena iyo nolosheenu dhaqankeennii hore soo ahaan jiray runtii marka la yidhaha xayawaan ee weliba la yidhaha duurjoog, dadka maskaxdooda waxa kusoo dhacaya waraabaha iyo libaaxa iyo shabeelka. kuwa waaweyn baa maskaxdooda kusoo dhacaya, kuwa yaryar baa kusoo dhici kara oo guduudanaha ariga dadka ka cuna, dadkeena reer baadiyaha ama reer miyiga ah. marka su-aasha isweydiinta le waxa weeye taariikhdeeni hore ahayd mid la eryado un xayawaanka waaweyn lagana baqdo dabcan, libaaxa iyo dadku ay ka baqan jireen oo colaad mar walba ahaan jirtay taariikhaheena. oo xitaa haddaad xasuusato sheekooyinkeenii caruurnimada, dacwada diin iyo dacway dabkaaba, diin iyo khiyaamooyinkii ay isu dhigi jireen. marka waxay ahaan jirteen wax caruurtan lagaga baqadsiiyo, dadka waaweynna ay runtii noloshooda ku ah khatar ku ahaan jiray maadaama ay deegaanku wada noolaayeen. marka su-aasha iminka isweydiinta le dad badan isweydiiyeen waxaa ka mid ah baahalihii aynu garanaynay maxaa lagu daraynayaa, doorkan laga daraynayaa ee loo badbaadinayaa laga daryeelayaa. xaqiiqatan waa isbedel baa ka dhacay dunida. isbedelada dunida ka dhacay waxaa ka mid ah in xayawaankii duurkii loogu tago oo halkaynu ku naqaaniyo meeshaynu ku ogeyn la bedelo oo iyagii ganacsiga galaan. taasaa keentay markaa inaan anagu urur ahaan isu diiwaan gelino. ka hor intaynaan isdiiwaan gelinna si mutadawacnimo ah dadaal dheeroo lagu soo waday sanawaad ayay ahayd. okay. marka yani waxaad leedahay duurjoogteennii baa la tahriibinayaa miya? ha siyaabo kala duwan baa xayawaanka looga ganacsadaa. qaarkood waa la ugaadhsadaa oo duurkaa lagu dilaa. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood miidiyaha ku aragto sakaaroon la laayey, caw la laayey, deerooyin la laayey oo ama dad caraba laga iibinayo ama dad caraboo dalxiisayaal oo inoo yimid ugaarsi loogu kaxeeyey. taariikhda Somaliland iyo ugaarsigu miyuu cusub yahay? may waxaa jiray 1800 dad inoo iman jiray baa jiray taariikho hore 100 sanadood ka hor. ugaarsiba dadka dhulka Somaliland loo iman jiray, dadii oo cadaana iman jiro Kenya soo mari jiray, laakiin waxay ugaarsan jireen wax kooban. ama wax laga yaabaa hal xayawaan inay u socon jireen ama maroodi u socon jireen ama libaax u socon jireen. laakiin xaalufkan imika jira oo ah ganacsigan imika hadda galay ayaan jirin. hadda waxa galay ganacsiyada kala duwan oo qaarna in laga ugaarsado la laayo, qaarna in sidooda inta loo soo ugaarsado la dhoofiyo, badweynta laga saaro. ganacsadayaal Yamaniyiin badweynta soo istaagaan, ganacsadayaal Soomaaliyiina ay u gudbiyaan oo siiyaan. marka waxay isweydiinta le deegaanada laga ugaarsadaa ma gudaha Somaliland oo kaliya baa may u ka fog yihiin. waxa la tagaa Itoobiya, deegaanka Soomaalida la tagaa oo qaar baa ka soo gura khaasatan harimacadka oo ah ka ugu badan ee imika la xariibiyo ama sida sharci darrada looga ganacsado. isaga marka waxay ka soo guraan deegaanada Itoobiya, xadka Somaliland buu soo galaa, way sii dhaafiyaan, wuxuu ka baxaa xeebaha. waxaan la tahriibinaya ama kuwan laga ganacsanaya baxaya ma waxay ku kooban yihiin kuwa Somaliland gudaheeda aan ahayn oo ka baxsan? may kuwanina way ku jiraan oo wixii deegaankeena laga helana waa la sii raacinaya. deegaankeena ka laga waayana ama kay hore uga qabsan kari waayaana waa silsilado isku xidhan oo waxay u gelayaan deegaamada kale Soomaalidu degto. hadda ilaa Puntland bay taxan yihiin oo laga gurayaa, iyagana deegaanka laga gurayaa. marka waa dhibaato ku cusub dhulka Soomaalidu degto maadaama aynu ku noolno
geeska afrika halka ugu koonaysa ama okay cidhifkii geeska afrika. maxaa markaa soo kordhay loo xiiseynaya xageesii ay ku dambeynayaan markay xuduudda dhaafaan si tusaalahaan fiican waxaa soo kordhay waxa weeyi ganacsi baa galay. wax kastoo ganacsigu koraana wuxuu ku shaqeeyaa speed ka badan kii markii hore ay ku socday. baalahan marka laga saaro dhulka Soomaalidu degto inuu inagu waliba u badanahay Somaliland u baday marka laga saaro waxay u gudbaan Yemen waxa jooga nimanka sii gudbiya oo iyaguna gacan dhexa ah. waxay u gudbaan barigii hore waxay xoog u gudbi jireen Imaaraadka, Saudi Arabia iyo Kuwait iyo Oman wadamada Gulfka la yiraahdo ayay u gudbaan. marka dhulka markay u gudbaan waxa jira dad ganacsadayaal taajiriina oo baalahan u haysta qaab amacam inay raaxadooda qayb kamid ay tahay oo dadku waxay ka dayaan qayb kamid ah raaxada nolosha ay haystaan ee aadka u qaaliga inay xayawaanada exotic ah ee yar tahay in la helo laftirkooda inay haystaan oo taasi ay u soo kordhinayso sumcad iyo prestige noloshooda ee qaniga ah. marka taasa keentay qolada qaniga ah ee ku raaxaysanaysa dalabka ay u qabaan ama demand-ka ay u qabaan baa keentay in adeegayaal iyaga ka iibiya soo baxaan oo marka deegaanadii dib u imanaya oo deegaanadii xaalafinaya. marka harimacadku sidaas ugu batay oo wuxuu noqday mid kamid ah kuwa imika dabar go'aya wax la geliyay liiska xayawaanka dunida ka dabar go'aya. marka idinka shaqadiina waa maxay? annaga shaqadeedu waxa weeyaan harimacadku kaliya maaha laakiin annagu waxaanu ku bilownay dadaalkan annagu wadno hadda waxa bilaabay amaba duurjoogta marka laga hadlayo Somaliland soo dhantahay oo dhan waxa bilaabay nin Jarmala oo Gunter la yiraahdo. Gunter wuxuu Somaliland yimid 2001 2001 buu yimid muddo isagoo joogay dalka marka 10 sanadood oo intaana ay ka shaqeynayay awdal ayaa wuxuu arkay magaalada Boorama degan wuxuu arkay marka silsiladan isagoo shaqaysto fahmay. dadkeena Soomaalidu kumay baraarugsanayn runtii xayawaanka waliba duurjooga iyo daryeelkoodii waxa maadaama isagu dunida inaga yimid oo dunida jaarkeena ana uu ka warhayay dadaalada ka socday iyo santarada ay leeyihiin waqtigaas halka ka bilaabay awdal. waxay ku bilaabeen harimacad ku bilaabeen guduudanayaal bay qabteen marka waxa waqtiga isaga la shaqayn jiray dad reer Boorame ah iyo waaxda deegaanka ee Boorame. marka xilliga markay bilaabeen oo imika hadda noqonayso 10 sanadood ka hor xilligaasay dadaalkan soo bilaabeen. marka harimacadii u horeeyay gacanta ku dhigeen maadaama xilliga Somaliland sharci u gaar lahayn khaasatan xayawaanka u gaar ah ama si cad u sheegayay oo ahaa deegaanada xeerarkii deegaanada ay waaweynaa guud ay wadaagayeen mooyaane asay aanay Somaliland also sidoo kalena lahayn center xayawaanka lagu hayo. marka isaga iyo marka qoladii la shaqeynaysay gobolka Awdal waxay marka ku heshiiyeen in wixii ay ka qabtaan silsilada noocaas in laba meelood loo kala dhiibo oo inaga caawiyeen inay noo hayaan. qolo la yiraahdo Bonfree oo Addis Ababa ku yaala oo center ah xayawaanka lagu daryeelo iyo qolo la yiraahdo Dikan oo ku yaala Djibouti xadka waliba Libiya cad soo xiga oo niman Faransiis haystaan. marka labada meelood ba loo dhiibi jiray wixii laga qabto ay gacanta ku dhigaan ay u dhiibi jireen. marka muddo markay soo socotay taasi ilaa 3 sanadood ah ayaa marka Somaliland waxay samaysay xeerkan la yiraahdo xeerka kaymaha iyo duurjoogta xeer 69 2015 xeerkaas marka qodobkii 8aad baa si cad u qeexaya inaan laga ugaarsan karin inaan la dhoofin karin si sharci darro looga ganacsan karin dalkan laga saari karin. marka xeerkaas kadib markuu dhashay ayaa marka Gunter iyo wasaaradii marka isku wargeliyeen in aynan waxna dibadda inooga baxayn waxayna dalka lagu haynayo labadii qolena xudhiban jireen ayna waxba u dhiibanaynin. marka waxa timid su'aasha ah haddaynu markii hore labada qolo bidnay inay wax inoo hayaan oo iyagu facility-gi iyo centerkii la hayeen iyo meeshii lagu daryeelayay xageena inagu ku haynaynaa. marka runtii dawladdii waqtigii dawladda Silaaye ahayd waxay noqotay inaan arrinta hore looga jawaabi waayay maadaama levelka wasaaradda deegaankuna ahaa level aan wasaarad ee aanay ahayn oo dhaqaalahan dabcan ku samayn karta marka daryeelka inta leeg. marka waxay noqotay in ninkii bilaabay laftirkiisa ay ku soo noqotay tiina
marka inuu isagii markaa haddana markuu arkay inaan wixiina dalkii ka bixi karin dee la qabanayana markasta oo dadaalku waa socdaaye inuu markaa isagu somalilan u noqdo santarkii markaa somalilan daryeelka xayawaanka marka waxaa markaa laga soo gudbay jawigii hore ahaa hala badbaadiyo marka waxaa kusoo biiray hala badbaadiyo hala daryeelo okay marka hadda waxaan isweydiin leh aniga iyo dad badan oo la mid ahay waxaan inta badan shaashadaha ka aragnaa iyadoo oo la qabanayo xayawaan duurjooga oo weliba harimacadka haw batay laga ganacsanayay oo xeebaha laga soo qabto oo ciidanku soo bandhigaan inta waxay ka dambaysan laakiin wax warbixin oo ka soo baxdaa inta badan lama arko xagee ku dambeeyaan maxaa dhaca marka ay la soo qabto xayawaanka kadib marka la soo badbaadiyo xayawaanka ee laga soo badbaadiyo gacanta dadkii taariibinayay ee ciidanku keenaan ee wasaaradda lagu soo wareejiyo halkay ku dambeeyaan waana halka ugu muhiimsan ee runtii xayawaanku gacantaa dambe ay gelayaan marka waxay imanayaan keerinkii bay imanayaan annagu tusaale ahaan waqtigaanu hawshan markaa gacanteeda ku haynay oo ahayd sanadkii 2017 oo ahaa sanadkii ugu badnaa ee la qabto xayawaanka weliba khaasatan harimacadka oo xeebta laga saaray somalilan oo ciidanka baddu soo qabteen oo waxay noqotay markaa kuwa annaga gacanta ku haynay oo gunter baa u qaabilsanaa somalilan care centerka u ahaa xilligaa waxaan garanaya anagoo 4 subaxnimo u toosna maadaama tiradooduna badnayd maadaama isagoo yar oo gacantayda leeg laga soo qabanaya qaarkood oo markaa u baahan yihiin caring gaara oo feedingkooda maalintii u dhacayo ama quudintooda maalintii 4 jeer la quudinayo bas waa wax yar hooyadii dhashay shaqadan qaabilsaneed ee caanaha siinaysay korinaysay laga soo hoos qaaday iyo xayawaanada kale ee iyaguna ka duwanaa harimacadkan gacanta ku haynay marka waqtigaas laga soo bilaabo 2017 ilaa 2019 gunter baa ahaa santarka somalilan isagaana daryeelayo hayay wixii dowladda soo qabatay isagaa loo dhiibi jiray annagaana la haynay aniga iyo inaan jimcaalo la yidhaahdo gabadh kaloo dhakhtarada nala joogtay marka annaga laftarkeegu waxaanu dareenay culays maadaama aanaanu haynin dad dhakhaatiira oo takhasuskan leh oo dalka joogay in annagu markaanu dalbano 2 jaamacadood oo reer yuruba jaamacadda Czech Republic iyo jaamacadda Romania walaa hadda inala shaqeeya 2 jaamacadood inaan ka codsanay inay noo soo diraan dhakhaatiir iyaguna qaybtii markaa anaga ka baxsanayd hawsha ee aqoontayada inay iyaguna kala soo galaan oo ay Somaliland ka kaabaan marka saasay ku yimaadeen 2 jaamacadood oo iyaguna ina siinaya caawinta oo waxaan xasuustaa hablaha markii la soo dirayay 2017 ilaa 19 intii u dhaxaysay in gurigan guntaru ku hayay santarka ahaa laftirkiisa inay iyaguna qayb ka deganayeen annaguna aan cuntada u karin jirnay oo oran jirnay mar hadday Yurub inooga yimaadeen iyagoo tabaruc u socda waa inaan annaguna ka tabarucnaa halkay degayaan iyo waxay cunayaan marka saasuu dadaalkaasina runtii caringku ku socday ilaa hadda way nala joogaan 2 jaamacadood inkastoo ay annaga hadda nala shaqeyno la shaqeeyaan qolada kale iyaguna harimacadka haya huda waxaad sheegtay in markaa xarun laga sameeyey magaalada oo xarunta weliba ninkaas ajaanibka ahi uu isagu sameeyey xarunta nooga waran si fiican xaruntan waxaa jirta xarun kooban oo yar marka loo eego xarunta weyne dabis marka xaruntan yar oo dhanna ka gurigu deganaa dhanna ka halkay degayiin oo santarka wuxuu ahaa santar loogu talagalay emergency-ga ama xaaladaha degdega oo xayawaankan marka la soo qabtay inuu u baahan yahay meel degdega oo cunto lagu siiyo dawana lagu siiyo laguna hayo inta looga fakarayo xerada xayawaanka uu tagayo marka xilliga culayskii markaan qabsaday waxay ahayd 2017 hawshii markay soo bateen xayawaankii kulba la soo badbaadinayo uu si soo kordhayaan in marka la isweydiiyo maadaama inaan meel kala geynaynin oo xeerkeeni mamnuucayo inuu dalkii ka baxaan halkanna ay tahay un xaalad emergency ku sugida sidii loo aasaasi lahaa santar marka taasaa keentay in santarka dabis la aasaaso 2017 shir la isugu yimid caalamiya oo ka dhacay wasaaradda deegaanka laftarkiisa lagu falanqeeyey goobaha noqon kara halka ay Somaliland u noqonayso santarka u noqon kara marka dhowr goobood baa lasoo geedeble ku jiray laakiin markii dambe waxaa la isla qaatay deegaanka dabis oo u jira 70 kilomitir magaalada Hargeysa
oo xilligii hore dowladda siyaad barana ahaa xerada dhirta lagu tarmiyo dhul dowladeedna ahaa intaa looga faa'iideeyo marka tiiban aniga iyo guntarna ku bilownay fundkan ku bilownay runtii centerka in lagu bilaabana wuxuu ahaa GIZ maadaama hay'adda GIZ isagoo mashruuca sustainable land management uu maamulo ka ahaa manager ka ahaa inaan markaa ku xidhno shaqadii deegaankii aan wadnay oo markaa dadaalkii uu noqdo dadaal aan haddana funding u raadinay oo hay'addii uga samaynay in centerka la dhiso marka isagoo centerkuna dhinac ka socda oo xeryihii la dhisayey xayndaabkii guud loo xidhayey loo sameynayay markaa deegaankii dee duurjoogku ku noolaan lahaa oo aanu geynay wixii ay u baahnaan talaagadii hilibka loogu keydinayey meeshii farmasiiga looga dhigayey halkii dadku seexan lahaa solartii laga dhalinayay laydhka marka dadaalka aanu halkaana ka wadnay waxaa garab socday dadaalkan ah soo qabashada iyo xiriirkanu ciidanka la leenahay marka taasaa keentay markaa in lays dhinac wado halka loogu talagalay mustaqbalka inay ku noolaadaan keliya maaha xayawaankan laga soo qabanayo silsiladan ganacsiga ee xayawaanka kale ee laftirkiisu u baahan yahay in la daryeelo xayawaanada ka waxa jira dadkeenu xayawaanka u daran yihiin waxa jira gorgorro la dhaawacay baa jira meelaha qaar inta la yiri hal dabool hal xidho garbihii ka jabeen oo hayno waxa jira xayawaan kale oo aan iyagu harimacad ka ahayn oo iyaga laftirkooda ka qabanay ganacsiga sida guduudinayaasha deerooyinka cawsha goodirka marka kuwa kale laftirkooda waxay noqotay inaan magaalada lagu hayn karin in deegaanka iyo centerka loo sameeyo centerkana aanu sidaa ku taageeraynay oo aanu lacagta halkaa uga sameynaynay marka 2 jeerba aanu deegaanka iyo wasaaradda deegaanka la shaqaynaynay maraan dadaalkan gaarka ah ee naftii hurraha ah ee wax lagu soo badbaadinayay iyo daryeelka xayawaanka kala shaqaynaynay iyo mar aanu GIZ ahaan kula shaqaynaynay oo ah markan aanu dadaaladan kala bixinaynay oo ah dadaaladii kala duwanaa wasaaradda gaarsiinay heshiisyo lacageed oo ilaa $400,000 baa jira oo wasaaradda deegaanku dabis ku horumarinaysay markaan anagu tii hore aasaaskii hore wixii ku xigay waxaa inaan wasaaradda doorka siino ama roolka siino inay wasaaraduna iyaduna laftirkeedu howlgal ka fuliso dabis lagu horumarinayo dadaalada laftirkooda waxa keenay marka inaan ku aasaasno ciidanka deegaan ilaaliyaasha ah oo markii koobaad ee taariikhda Somaliland yeeshay dirays iyaga u gaar ah oo runtii waxyaalahan aad ugu faano anagu kamida Somaliland ay tahay runtii inay aad ugu faanto waayo deegaan ilaaliyaha dhibkii markii hore haysatay waxay ahayd waxay isqabsan jireen dadka deegaamada ay ka shaqaynayaan oo qofku marka aanu dirays lahayn lama ogaan karo inuu qof caadi oo ka eriyay yahay seerahaad xidhayso geedkaad jarayso xayawaanka geedka ku jira gubayso duurjooggaad eriyanayso waxaas oo dhan qofka deegaanka ilaalinaya wasaaradda u jooga dhulka Somaliland ee ballaaran aragtay ee kala duwan markii hore lama aqoonin waayo wax lagu garto muu jirin laakiin waxaan u sameynay dirays iyo haybad lagu garto oo shaqadooda ku fuliyaan alxamdulillahna maanta markastoo narka bariga Somaliland iyagoo dirayskii xidhan oo hawlaha dhuxulaysiga waxa ka dagaalamay runtii anaga dhiirigelina noo ah dadaal runtii guntar iyo GIZ ay samaysay oo anaguna aanu la riixnay kamid ahayd waayo anaaba xasuustaan aniga guntar si gaar ah inaan dirayska u design gareynay labadayadu marka taas runtii horumar aan oran kara la taaban karay ahayd oo wasaaradda aan gaarsiinaynay marka laga tago xayawaankan iyo dadaalkan kale wuxuu deegaanka isla wada noqonayaan marka waxa dhacday 2018 in ciidanka baddu soo badbaadiyeen 8 harimacad iyadoo waliba sarkaalkii ciidanka badda haystay ay ku baayaceen nimankii tuugada ay xayawaanka sida inuu $2,000 siiyaan $2,000 ay siiyaan iyagoo badaba taagan si uu ugu sii daayo kuway siteen markuu qabtay marka Yemenigii laftirkiisa qaadanayay baa badda taagnaaba cirifka usukay badda taagnaa doon dheeraysa watay oo xitaa ciidanka laftirkoodu eriyadeen walaw ay marka doontii watay speed force powerkay wada ijiinkoodu lahaa iyo kiisu kala yaraayana uu soo qaban kari waayay markii dambe aanu la kulannay sarkaalkii taas sameeyay oo runtii shaqo aad u wanaagsan ahayd Somalilandna lagu ammaanay oo dunida looga soo diray hambalyooyin doorka ay ciidanka badda Somaliland ka qaateen arrinka waxay noqotay markaa inaan ka tashano anagu markaa inteedii gaarka ahayd in kaliyaana shahaada sharaf siinay aanu siino wax u qalma runtii dadaalkooda marka taa laftirkeedana ciidanka ka taageernay muxuu ahaa support ama caawin
khuseysay markaa hawlaha ay qabanayeen 3 jino waaweyn telefoonada turayooyinka kamarado iyo adeegyo yar oo kale oo ay ku shaqaynayaan marka operationskooda ka caawinaya daily maalinlaha ah marka taasoo runtii keentay inaanu $30,000 uga samayno GIZ ciidamada badda oo la dagaalamaya dembiyada ka dhaca badda ka dhaca iyadoo waxaasoo dhan jiraan ayaa hadda waxa dhacday dadaal kasta dee dad baa bilaaba dad baana ku dhinta oo runtii u dadaalo oo shaqeeya marka halkaa markay maraysay ciidankii baddu soo qabteen nimankii maxkamadiina xukuntay ay nagu soo wareegeen annagayoo markaa keerinkiina samaynayna halkay centerkii iyo futureka halkay tegi lahayna u dhisayna silsiladaa isku xidhan baa soo jiidatay dadyow badan oo adduunka ka mid ah oo iyaguna markaa daneeyey inay kusoo xidhmaan Somaliland waxaa ka mid ah hay'adda CCF oo imika joogta oo waqtigaa annaga hawadun aanu iskala soconay markaa naga taageeray harimacadko keliya inay yidhaahdaan hilibkaanu ka bixina maadaama iyagu yihiin hay-ad ku takhasustay harimacadka marka CCF baa iyaguna daneeyey inay yimaadaan 2019 oo dalka soo degaan waxaa yimid qolo kale oo Ingiriis oo Aspinal la yidhaa oo iyaguna soo degay huda laakiin marka ay haydo dee caalamiyidiin imanayaan miyaanay iyaga laftooda maxaa ugu jira maxay ka faa'iidayaan si fiican CCF oo kale markay imanayeen 2019 bay soo degeen xilligaas oo runtii qolooyin kale oo Ingiriis iyaguna daneynayeen hawshan u yimaadeen CCF markii hore xiriir bay Gunter lahaayeen Gunter baa la xiriiri jiray maadaama isagu Somaliland u qaabilsanaa xayawaankii waxaa weliba khaasatan aan harimacad la dagaalamayna anagu in la saaro la dabartiro iyaguna ay Namibia hawsha tulamida ay ka shaqeeyaan oo bayskoodu Namibia yahay CCF harimacad kuma daneynayeen saasi Somaliland u soo galeen oo yimaadeen qolo kala timid iyaguna Somaliland waqtiga 2019 bilowgiisii Aspinal Foundation la yiraahdo Ingiriisa qoladaas iyagu waxay la yimaadeen dabcan dadaalkii aan anagu wadnay markuu media dunida galay bay dadkan arkeen waayo markaan anagu bilaabaynay in qoriga dab iska taagaynay cidlada ahayd iyo markii boorama hawshan laga soo bilaabayay dunidu may ogeyn marka lama interest garan karo waxaan la ogeyn qolada Aspinal waxay u la yimaadeen Somaliland offer kaasoo ahaa inay yiraahdaan qayb xayawaanka ka mid ah marka harimacadkan soo badbaadinay ka mid ah ilaa 8 ahayd xana la siiyo waxaanu geynaynaa South Africa marka waan soo tarminaynaa qaarkoodna duurka lagu sii deynayaa marka dadkii gacanta ku hayeen anigu ka mid ah waqtigaas su'aalaan isweydiinay waxay ahayd 23 harimacad baan markaa waqtigaa gacanta ku haynay 2019 waxaan isweydiinaynay 23 harimacad oo hilib cunaya oo maalin kastaba intaasoo kiilo hilib loo soo iibinayo oo weliba silsiladii furan tahay oo xuduudihii Somaliland xidhnayn oo hawshii socoto 23 kaas ayaanay dowladda Somaliland awood u lahayn inaanu hayno oo anagu la baabaynay oo anagu wax u raadinaynay oo anaga jeebkayga saarnaa marka su'aasha isweydiinta waqtiga anagu lahayn waxay ahayd 23 marka laga badiyo la soo tarmiyo sidee loo haynaya su'aashu waa taa waayo isagoo la tarmiin baaba culays dhaqaalihii ku ahaa already waayo sidan horeba soo sheegay wasaaraduna wasaarad ayama ahayn hawshan takhasuskeedu ay khosayso dowladda Somaliland budgetkeedu iska yariyo manihiin wadan la aqoonsan yahay oo wadamada la aqoonsiyay jaarkeenu qaabkay funding u heli karayaan uma heli karayno marka qolada Aspinal Somaliland qas bay soo kordhiyeen runtii markii dambana adu iska baxeen oo hawlaha u socdeen way iska baaba'een taasi runtii xitaa markii dambe waxay kaliftay inuu Gunter oo dalka Somaliland waxaan budhigu ahaa dadaalkiisii la inta ahaa dowladda Somaliland shacabka Somaliland iyo qof kasta oo reer Somaliland ka mudnaa runtii in la garab galo oo hawsha lala galo in dad markaa aan jecelahay inaan kaga warramo si kale qoraalo kale oo aan soo gudbinayo in ay ka dambeeyeen in si khaldan dalka looga saaro tiina ay dhabarjab markaa ku noqotay dadaaladii socday annagana runtii ay dhabarjab nagu noqotay waayo iyadoo maxkamad ciidamadii shaqaynayaan oo la soo qabanaya dadka la soo qabtaaba haba tira yaraadaan laakiin dacwadooyin ciidanka booliiskuna uu ka qabanayo controllada ciidanka baddu uu shaqaynayo soo qabanayo maxkamadii la horkeenay maxkamadii xukuntay tiraba 2 jeer ay xukuntay oo kiisaska harimacadka kiiska dhacdada libaaxyada yaryaraa
maxkamaddu ay xukuntay oo dadkii nidaamkii cadaaladdan la marinayay annaguna aan keerinkii diyaar laahayn labadii jaamacadood soo xidhnay European-ka ahana ay bixinayeen dadaalkii ahaa iyaguna caafimaadka inay naga caawiyaan CCF harimacadka ay naga bixinaysay hilibka wixii kalena uu guntur jeebkiisa ka bixinaya xayawaankii kale oo dhan ood mooday dadaalku halkii ugu sarreysay inuu gaadhay muddo yaroo kooban oo dad badan oo loo kalena aan kula shaqaynaynay oo naga go'naa dadaalkan runtii in wixiiba ay dib u laabeen ood moodo in 2011 dib loogu noqday CCF ay Somaliland soo degtay kuwan anagu haynay la wareegtay dhowr iyo 30 harimacad baan gacanta ku haynay ay la wareegtay oo marka iyagana u fududaatay hawl laga soo shaqeeyay inay gacanta ayr ku dhigaan anaguna marka intii xiradayadii ku jirtay ee centerkayga joogtay aan marka anaga ay culaysku waliba khaasatan aniga igu dhaco oo ay marka noqoto mas'uuliyad aanan isu diyaarin inaan dawladdu fursad noo siinin marka ninkii maamulayna hore loo saaro anigina fursad lay siinin wixii aan marka u diyaar garoobo hayntoodii iyo maamulkoodii taas waxa qaadatay muddo 2 sanadood oo isjiid runtii dheer oon jeclayna qoraalo kale kaga warramo ay qaadatay marka halka haddaan dul istaago buugna waad soo wadaa dabcan oo halkaasaad faahfaahinta ku qori doontaa laakiin balse aan u fahanno calashaan damacii ingiriiska ahaa ee yimid ee doonayay harmacadyada ayaa isaguna sabab u noqday in ninkii kali ahaa ee ajaanib ahaa ee dalka joogay waqtigiisa iyo dhaqaalihiisaba geliyey sidii loo daryeeli lahaa xayawaankan looga saaray dalka siyaasado badan baa ku lamaan runtii oo laakiin taasa ay budigu tahay taasa budigu ah waayo problemka halkiisa loogu tagaa manaha wax laga lindhaha la iska qarsanayo taariikhdana waa la wada hayaa waana la isla wada ogyahay taasa budigu ahayd rajada qolada dowladda Somaliland iyo dadkii siyaasiyiintii gaarka ahaa ee qolada watay la shaqeynayay ay kala haayeen waxay ahayd in qoladaasina operationkaas uu fulo iyagana uu fuli waayay dhibaatooyin kala oo jiray awgood kamid ah oo xayawaanada qaarkood harmacadka laftarkiisa qaarkood xanuunsanayay oo xanuun baa jiray iyagana ku dhaca sida coronavirus-ka dadka bini'aadamka ugu dhaco iyagana waxaa jira coronavirus kale oo iyaga ku dhaco FIB la yidhaha kaan laftarkiisa jiray FIB-gaasaa jiray oo dee xayawaanka qaab ka mida ku dhacay marka qolada ingiriiska laftarkoodu interestka iyo dantay kala haayeen Somaliland bay ka dhex waayeen saasay iyaguna isaga baxeen markii dambe iyagoo budigu ahaa qaska dhacay markii hore oo dhibka dhacay waxay ahayd harmacadku hadday CCF la geeyo sida imkaba loo geeyo dee annagu waxaan haynay wixii aan xitaa harmacad ahayn ee kale guduudanihii baanu haynay goodirkaana la joogay garanuugtaana la joogtay gorgorkaana la joogay marka waxay ahayd wixii kale xayawaankii kale oonay CCF Somaliland u hayn karin inaan anagu haynay oo danta xayawaankuna dabcan ay ku jirtay annaguna 2 sanadood guntar uu dalka ka maqnaa ilaa maalinkuu bilaabay ilaa maanta uu soo noqday intaba jeebkiisa ku noolin xayawaanka gurigiisa ku jira iyo xayawaanka gacanteeda ku jira dowladda Somaliland waxay la wareegtay dabis oo deegaankan ka shaqeynayeen anagu budigiisa lahayn 2019 guntar markii la saaray dabcan waayo xayawaan baa dhex joogay oo u baahdaa mas'uuliyadda in dowladdu la wareegto sidaas dabisna gacanta dowladda ku gashay intii dabis ka horeysay waqtigaana anaga gacanta ku haynay wiig walba tagi jirnay dhismaheedana qayb ka ahayn wadnayna ilaa haddana dabis laftarkeedu waxay u baahan tahay horumar kii hore ka weyn maadaama xayawaanka anaga nala jooga deegaanka dabis u baahan yihiin oo deegaan kaga
ka ballaaran halkan maanta anagu ku hayno deegaan ahna mustaqbalkii aanu iyaga u dhisaynay runtii marka xaaladda debis waa sidee marka ma tahay xarun noocaas oo imika lagu halayn karo ama la geyn karo xayawaankan imika aynu arkayniye xaruntan Hargeysa waqti xaadirkan annaga go-aankan hor yaalay wuxuu ahaa guntarna uu soo noqday jeebkiisa isaga fangaranaya ilaa imika in sidii ay markii hore wax u socdeen iyo dariiqa wax u socda lagu soo noqdo maadaama dariiqii markii hore wax u socdeen dan uu ahaa xayawaanka noloshooda iyo badbaadadooda dan u ahaa xaaladda debis waqti xaadirkan lagu jiro dowladda Soomaaliland baa maamusha daryeel ay ku sameeyeen intaan anagu ka maqnayna gaabka ahaa 2 sanadood dayactir wixii ay u baahnaayeen xeryaha hadii laga bedelayay qoryihii ay haayeen ay ku joogeen laakiin debis waxay u baahan tahay maamul waxay u baahan tahay dhakhaatiir joogta ah xayawaanka ka warhaya waxay u baahan tahay dad maamulkeeda dhisa shaqaalaha degan ee dadka deegaanka oo aan ahayn dad deegaan duurjooga u diyaar ahaa dad reer baadiya baa jooga dadkan la tababaro debis inay noqoto markaa center Somaliland leedahay hooy uu noqonaya xayawaanka la soo badbaadiyo ganacsiga laga badbaadiyo iyo xayawaanka kale ee baahanba hooy u noqota taas marka waxay keenaysaa in ay u baahan tahay horumar oo kan anagu isu diyaarinay imikana ah inaan dowladda Somaliland kala shaqeyno wixii dhacay ha dhacaane sidii xayawaankaasina u badbaadi lahaa xayawaanka gurigeyga joogana uga bixi lahaayeen centerkayga markaa kuwa jooga uga bixi lahaayeen hooygood debis markaa ay u tagi lahaayeen debisna ay u noqon lahayd meel dalxiisayaasha soo jiidata dhaqaalaheedana soo saarta mustaqbalka marka deegaanka debis xaaladiisu waa sidaa waa deegaan dhisan oo xayawaan joogaan laakiin horumar u baahan horumarkan aan anagu isleenahay qaybaad ka qaban kartaan dadaalkan waad ka geli kartaan dabcan taasi waa haddii dowladda Somalilandna ay nagala qayb qaadato sidii aan anaguna hawsha aan u fulin lahayn shakhsiyaad baatiin huday markaad u badan tihiin urur baad tihiin oo waxaad tihiin heritage Somaliland awoodiinu si kastaba dee aad u fircoonaataan haddana way gaaban tahay oo dee awood xataa ma lehidiin dowladeed si fiican marka aad dowladda Somaliland leedahayna waxaad dabcan dowladda Somaliland uga mas'uula oo loo igmaday wasaarad la yiraahdo wasaaradda deegaanka iyada iyo wada shaqaynteed ka dhaxaysa waa mid nooceeya maxayse inkastoo inay nala joogin oo aynaan weydiin karin doorkooda imika laakiin idinka dhanka ay ka soo gaadhaan wada shaqayntiina waa mid noocma wasaaradda deegaanka runtii waa wasaarad aan isleenahay waxaad ku leedihiin door aad u muhiima sidan horeba kuu sheegayey wasaaradda waxaanu la shaqaynay waaxaheeda gobolladoo dhan baanu la shaqaynay dadka u jooga gobolladoo dhan baanu tababaro u samaynay anagoo GIS ahaa waqtigan GIS ahayn dadaaladaanu gelinay wasaaradda waxaa ka mid ah 10 baabuurna ugu deeqnay 4 sukusuki iyo 6 xaajidood oo Ford Rangerska nooca la yiraahdo gobol kasta oo wasaaraddu xafiis ku leedahay kombiyuutaraan ugu deeqnay iyo xafiis kasta waxyaalaha uu ku shaqeeyaan ugu deeqnay deegaan ilaaliyaashu aan ku sheegay uniformnaan u samaynay waa wasaaradan isleenahay waad uga heliseen wasaaradaha kale oo dhan waxaad ku leedihiin quruxda ay wasaaraddu leedahay qayb weyn waana wasaaradan isku baahannahay maadaama anaguna danaynayno badbaadadii iyo daryeelkii xayawaanka waana wasaaradda runtii ay mudan tahay in xiriir aad u fiican naga dhaxeeyo muddadii aanu kala maqnayn 2 sanadood ahayd la isjiidjiidanayay marka laga tago waa wasaarad aan runtii aaminsanahay anagu inaan wax badanna ku leenahay iyagana ayna tahay anagana na ilaashadaan dabcan waayo anagu haddaanan maanta mashaariic waaweyn lahayn aanan sidanin shalay baan mashaariic waaweyn sidanay oo wasaaradda wax gelinay agaasimuhu waa cusub iyo hadda waan soo dhaweynaynaa waxaanan rajaynaa wada shaqayn fiican inay wasaaradana dhex marto anagoo ka duulayna sidii loo wanaajin lahaa noola dhis lahaa deegaanka debis iyo wixii kale ee deegaanka loo qabanayo iyo xayawaanka dabcan nala jooga anagoo wasaaraddu mas-uulka tahay walow aanay wasaaraddu taageero aanaanu ka helin oo ilaa hadda marka laga hadlayo taageerada rasmiga aan anagu isu qabno khaasatan weliba guntar isu qaba isagu oo jeebkiisa ilaa hadda ka bixinayo oo runtii aan anigu Somaliland aan jecel ku canaananayo in qof bini'aadam ilaa inta lagu tacadiyo oo tahay in dhan lala qabto oo sidaan anagu imika u jecelnahay xayawaankaasi hoyga debis loo dhiso oo halka tagaan marka mas'uuliyadda dawladana galaan dabcan anaguna aan saa kaga hareynay aan dhismaha qayb ka noqonayno marka wasaaradda deegaanka wax weyn baan runtii uga fadhinaa imika iyo xiriirka in la wanaajiyo waxaana jecelahay dadka reer Somaliland inaan u qeexo xayawaanka
wasaaradda deegaanka gacanteeda ku jira waqti xaadirkan waa inta debis joogta waa deerooyinka iyo cawsha iyo goodirkan geynay ee debis jooga waqti xaadirkan xayawaanka anagu aan gacanta ku hayna santarkayga ku jira anaga ka mas'uula waxay cunaan iyo guriga ku jiraan kiradiisa iyo cidda ka shaqeysa wixii ku baxa kuwa kale ee harimacadka ee faraha badan 60 iyo dheeraadka hadda noqday imika kadib markii in badan la soo badbaadiyay waxa gacanta ku haysa hay'adda CCF oo dunida oo dhan donation ka ururisa marka shacabka reer Soomaaliland waxaan jecel inay fahmaan horta marka ugu horeysa dadaalada socda dadka ka shaqeynaya iyo waxa la kala qaabilsan yahay iyo waxa dawladda Soomaaliland bixiso dabcan oo ah deegaanka debis xayawaanka ku jira oo deerada iyo cawsha wixii ku baxa biyaha iyo garowga iyo waxaas dawladda Soomaaliland bixisa laakiin dawladda Soomaaliland kharash imika kaga baxa xayawaanka duurjoogga hilibka cunaa ma jiro marka ay laga yimaado doorka wasaaradda deegaanka waxa jira wad ka dhawaajisay idinka laftiina oo aad garab bideen jaamacado ku yaala Yurub iyagoo jaamacadihii dalkeenu ay joogaan arday dhigata daryeelka caafimaadka maxaad uga keensan weydeen dhalinyar firfircoon oo afkii iyo dhaqankii iyo dalkoodiiba garanaya ee aad kuwa Yurub u keenteen tii nagu khasabtay inaanu 2 jaamacadood Yurub ka dalbano arday dhigtay veterinary ama cilmiga xayawaanka sida loo daryeelo waxay ahayd jaamacadaheenu inta badan ardaydeena waxay u dhigaan daryeelka xoolaha livestock marka waxa ka maqan sida jaamacadaheena inta badan qoryahan yimaada ee traininada bixiya ay arkaan oo gaabska ay arkaan kamida in ardaydeena jaamacadaha ka baxaysa veterinary cilmiga la barayo qaybta wildlife ka aan loogu darin garan maayo imika inay subjectyadan dambe sanadka lagu daray laakiin kuma jirin marka mararka qaarkood waxaaban anigu dhibsadaa runtii mararka qaarkood aan ka cadhoodaaba arday Yurub ka yimid markuu jaamacadda Hargeysa ama training ka bixiyo ama jaamacadaha kale uu tago training ka bixiyo ayaa mid baa maalindoodii igu lahaa yaroo Czech Republic ka yimid baa igu lahaa ardayban maanta u galay lecture jaamacadda waxaan baray diinka sida loo talaalo oo yaabanayeen macna aad buu la yaabay in ardaydeenu la yaabtay sida diinka loo talaalo anu waan dhibsanayay runtii waayo waxaan ogahay in jaamacadaheenu haddii heerka kor looga qaado aanu soo saarayno arday dalkeena u dhalatay oo dadna furkan ku jirna nagala qayb geli lahaa laakiin taas ay ka maqan tahay jaamacadaha curriculumska iyo wixii loo dhigayay qaybta wildlife ama sida wildlife loo daryeelo ardaygeena ugu badan wuxuu qoranayaa dameerka si loo daweeyo man garanaya ama waxa ugu badan ee jaamacadaheenu ay xaliyaan waa bisad jabtay ama ri ilma ka soo dhacay ama ilma ka soo bixi waayay neef bay kaaga sheekeynaa wild animals meelba kuma lahaad soo dhanayso marka taas anaga nagu khasabtay berigii inaanu doonano 2 jaamacadood oo takhasuska ardaydoodu leeyihiin inay noo soo diraan oo voluntary inta ku soo diraan anaguna aanu qaabilno ilaa imika hadda way joogaan oo CCF la shaqeeyaan marka la eego caqabadaha idinka hor yimid intaad shaqaynaysay waliba kuwa shakhsiga ahayd adiga kugu dhacay haday dhaawac noqoto ku soo gaara haday noqoto xarig meel lagu xiro haday noqoto halis kale oo naftaadu gasho maxaa kamid caqabadahaas wallahi horta wild animal marka la yiraahdo halkaas caqabad ku jirta waayo waxaanu ka hadlaynaa xayawaan duurjooga aan dad kala joogin sida bisadaheena yaryar domestic ah xayawaankan marka horeba duur baa loogu talagalay duur buu joogaa dadka shaqulku ma leh marka wixii duurka loogu talagalay dadkaba shaqul ku lahayn ayaynu doonaynaa inaan ku kabno noloshii dadku oo ah inuu gacantii bini'aadamka soo galo oo gacantii bini'aadamku koriso halkay hooyadii ka korin lahayd marka waxa dhacday 2017 markaan badbaadooyinkii koobaad bilowgii ku jirnay in aan mid ka doonay deegaanka Ceergaabo ka doonay magaalada Ceergaabo kaasoo bariga Ceergaabo laga soo qabtay runtii wasaaradda deegaanka marka agaasimihii waaxda marka Ceergaabo warqadii marka uu soo siiyay ogolaanshaha ah inay wasaaraddu bahalkan soo dhiibtay oon marka keenayo xafiiska wasaaradda ee Hargeysa in deegaanka Sheekh Habeen lay markaas waqti waxay fiida soo gaarnay anagu Ceergaabo ka nimid oo la cararayna isaga waayo waxaan diidnay inaan burca ku nasano anu hoyno waayo uu yaraa wuxuu baahnaa care degdega in caawinta degdega la soo gaarsiiyo aniguna dhakhtar maan ahayn waxaan ku sheegay dhakhaatiirtu nalmay joogan waqtiga 2017 marka anoo la cararaya marka oo doonay inaan ka soo gaarsiiyo dhakhtarkii Hargeysa in
marka controlkii sheekhna ay qabto oo u moodo marka inaan aniguna la baxsanayo marka aan qaabkii silsiladii loola baxsado oo kale loo tahriibinayo marka inaan habeenkii saldhiga sheekh ku qaatay waagu markuu beriyey 6 subaxnimo in layga soo daayey wasaaraddu marka la xidhiidhay sideen marka Hargeysa ku keenay mar waxaa dhacday marka kiiska labada libaax yaraa marka labada libaax yar laga soo qabtay deegaanka Allay baday oo waliba nimankii laga soo qabanayay wasaaraddu iyo ciidankeedu ka soo qabanayeen ay ku dagaalameen oo hub la isweydaarsaday hub soo rideen dabcan ay ku ilaashanayeen bahla iibinayaan oo ilaahay aanu cidna waxba ku yeelin dadkii soo badbaadinayay ciidankii wasaaradda ka tirsanaya shaqaalihii labada libaax markay Hargeysa yimaadeen in aanu u baahnay x-ray horta markaasaan ku sheegay farmasi weyn nimeena lahayn imika facility badan baa dabcan laga bartay dadaalkan oo la keenay marka in aanu dhakhtarka aadna geynay xabadeero libaaxaad adigu sidato sawiro oo x-ray-ga aadna oo dadka loogu talagalay aad geynayso oo dadka dhakhtarka jooga oo dhan ay yaaban yihiin alla yaaban yihiin marka koobaade maxay ku falayaan xayawaanka noocana iyo maxaa sabab ma libaax loo keeni karaa x-ray waayo dadkeen ma moodaan xayawaanku inay sida bini'aadamka laftarkiisa nafi ku jirto oo u baahan waxa bini'aadamku u baahan yahay oo kale dhacdo iyaduna yaab lahayd waxay ahayd labada libaax oo kale markii la keenay qofkii lagu eedeynayay maxkamadda in ay maxkamaddii dalbatay in labadii libaax loo keenay caddayn bal aduu laba libaaxoo yaryar soo qaado oo gaari ku soo rid oo gaarigan bacadka maantana intay dacwaddii socoto ha taagnaadaan oo markaa dee kuma dhex jiri kara shabagii yaraa uu kursiga marna hoos u gelayo marna oo dadkii maxkamadda joogay oo dhan lagu yidhi libaax baa jooga oo nin lagu soo qabtay oo dadkii maxkamadda joogay oo dhan intay soo gaarigii ay koonaha saa iskaga soo xeereen oo iyagu kuleyl kale nagu soo kordhiyeen kuleyl ka badan kii cadceedda 2 jeer waxaa dhacday inaan harimacadkaanu geynay maxkamadda laftirkoodaan geynay marka waxyaalaha challenge-ka waxaa ka mid ah in maxkamadda laftirkeedii wild animal la keenayo aadna u dhib badan oo ka wacnaan lahayd mararka dambe runtii maxkamaddu in iyadu maxkamaddu cid u soo dirto maxkamadda ka mid ah marka centerka halka lagu hayo un lagu eegi karo laakiin inaan wild animal maxkamad la geyn karin runtii waxaa kaloo iyaduna jirtay dhaawac mar iga soo gaadhay 2 harimacad oo niman Chinese mid ka mid ah wasiiradii hore ee Somaliland uu siiyey hadiyad ahaan u siiyey business dhex maray dartii isagoo dabcan og hawshan dadaalada lagaga jiray iyo siday tahay labadii harimacada yaryar markaa aanu siniro qoladii Chinese-ka ka soo qaada marka anoo markaa ku ridayna saxaarad inuu markaa midiila tiigsaday lugihiisa dambe cidida ku taala halkaasoo kulsa iga dhuftay gacanta marka waxa dhacday inaan xoog u damaqday waayo saas dhiib si hoos buu geliyay kadibna saa isaga dhuftay kadib aan xaraynay habeenkii markaa garaacii igu bilowday 5 habeen inay gacantu garaacaysay ay gacantu aad saaxita ii weynatay barartay marka ay igu dhacday inaan anigu shakiyo oo isiraahdo sida aydu markii qofka qaninto oo kale aan isiraahdo mala waxaad u baahantay dawadii rapes kale iskaga mudo marka dhakhtarkan tagay marka waxay ii sheegeen bararkuna inuu iga dhacayo dabcan waxaan kacsanay tahay bakteeriyada jirkeenu sameeyo marka wax kale oo dheeraadii dibadda ka soo galo runtii waxaad muuqatay inaad la dagaalamaysaan fahandan marka laga tago inaad xayawaan noole ah aad badbaadinaysaan ood xanaanaynaysaan waxa kaloo aad la dagaalamaysaan waa fahan ummadeed imika oo kale muuqaaladaynu arkaynay waxa weeyaan waa harimacad dee silsilad ku xidhan silig meel yaroo kooban ku xidhan shabaga aan orodkii samayn karaynin dee ilaahay u abuuray inay cararaan meeshii cidhiidhi ku tahay intaasina ay naruuraba u tahay oo iyagu aanay haysanin oo hadday bannaanka usoo baxaan dee aanay bannaanka isku bixin karaynin oo aanay duurjoog ahayn imika maadaama ay halkan ku koreen garanaysaa ama haddii kalena gacan kale intay galaan waddanka laga dhoofinayo oo cid kale qaadanayso marka fahan umadeed baad la dagaalamaysaa marka laga tago dadaalkiina kale tusaale ahaan dad madaxa baad la dagaalamayseen nin dee wasiiro oo bixiyey 2 harimacad baad sidaad iminka sheegtay ayaad ciddii wasiiyaad ka soo qaadayseen wasaaradda lafteedii baa fahan waa dhexdiina dhacay oo aad faahfaahinta aad buuggaaga dambe aad kaga sheekayn doontaa ee soo socda waxaa jira haddana mid bulsheed oo shacabka laftiisu aanay fahansanayn oo ah dhanka dhaqashada duurjoogta
hadday noqoto kuwa hudheelada jooga deerooyin iyo cawl iyo qaarkood harmac libaax iyo intuba way jiraan hudheelada jooga dad waxaa jira shiciba oo harmacadka u haystaba in laga dhigan karo dabjoog xayawaanka dabjoogta sida bisadoo kale iyo loo haysan karo loo korsan karo sidee dadka fikirkooda uga bedeshaan wallaahi horta wacyigelin ballaaran baanu samaynay anagu ilaa haddadan anu ka sameeyaa facebookeygaan ka sameeyaa dadkeena waxyaalaha ugu adag waxa weye waxaanay dhaqan u lahaan jira markaad u sheegayso way ku adkaataa waqti ku qaadataa mararka qaarkood baa waxa dhacda markaan anigu ka hadlayo social media ama baraha bulshada soo dhigo war waxa hala badbaadiyo halkooda haloo daayo duurka haloo daayo qaar baa koodhanaya dadkii baa dhimanaya maxaad xayawaankaad ka hadlaysa waa maxay dadkii baa baahana waa maxay xayawaanka waxa loo qabanaya mararka qaarkood waxay isweydiinaysaa ilaahay mala yacni waxa uu abuuray ma jirto wax kastaa ku duqsigana ha ku ahado shaquu haya wax kastana ilaahay shaqu ugu talagalo adduunkan u qaabilsan yahay mararka qaarkood sidaad sheegaysa fahanka bulshadu aad u adag ayaa keenaya in wixii badbaadadiisuna sii adkaato runtii waata keentay in nimanka laftirkooda tahriibinaya ilain marka duurkii kasoo qabtay un gaarigii maag taagna doontii maag taagna waa dareemi karaysaa deegaankan kuu sheegay ilaa taxan Soomaaliya Itoobiya taxan ilaa inaga ilaa halkuu xeebaheena ka gelinayo waa dareemi karaysaa marka intaa u dhaxayso oo dhanba way marinayaan marka ma oran karayo dadka intaas oo dhan u dhaxeeya ay marayaan mid kasta lacag bay siinayo ku aamusinay ma oran karno waxaan oran karnaa dadkaan u haysan inuu waxaan muhiim yahay ayaan u haysan saas wax badan inooga baxeen imiko kala sanadkii marka la isku geegeeyo waxa la dhahaa 300 harmacad baa baxa intayna dhaafta kamid ah qoraallo kale jiro oo oranaya 7,000 in leeg baa ku hadhay ama 7,000 baa ku hadhay waalka inkastoo anigu taa ka soo horjeedo oo markaan eego inta aanu imika badbaadinay waxaan aaminsanahay tirada dadka internationalka isku raacsan inay leeyihiin 7,000 baa ku hadhay dunida inay ka badan yahay tiradu ka badan tahay waayo ma jirto si sax oo loo diiwaangeliyey harmacadada ku sii hadhay deegaanada Soomaalida khaasatan waayo dhulka Soomaalida dhulal badan oo la gaaray baa jira marka runtii way adag tahay fikirka noocaas waxaana ugu adkaydeen dadkeena ka dhaadhicin kari weynay iyadoo wasiir sawir uu ku galay uu soo dhigayo Facebook inaad qof yar ku tiraahdo aadna soo dhiib mararka qaar waxaan oran jiray kuwan waaweyn waad ka baqanaysaan anagaad naga doonaysaa waana soo waagtahay dee marka wax sharcigu waa inuu adkaado oo wasiirkana qabto qofka yar miskiinkana uu qabto marka runtii anagu waan dadaalaynay oo waxaan islahayn ilaa gobolada dadaalka wad gaarsiiseen ilaa haddana dadaalada kala duwan ama anagu sameeyna ama dadkan kale ee ku jira hadda ha sameeyaan dadaalo badan way jiraan oo wax lagu gaarsiinayo muhiimadu waxa weeyaan dadka magaalada jooga hadda dadaal kasta gaarsiiso iyagu magaalada bay joogaan duurkii ma joogaan marka waxa muhiim ah dadka duurka joogay agtooda laga soo qaadanayo inay wacyigelinta ugu badan ay gaadho waayo qofka imika sariirtiisa gurigiisa jooga harmacad waxba iskama khoseeyaan marka la maanta maalinta harmacad kala xusaya dad badan baa kula yaabaya dad badan baa imika nala yaabanaa wiigan abay ahayd maalinta harmacadku 4 bishay ahayd marka ilaa wacyiga dadka lagu celceliyo shaygan oo ahmiyadiisa ay fahmaan mooyaane way adagtay dadka bulshadu inay sidiisa isaga qaataan waxaad u sheegayso dadka reer baadiyahana waxa muhiim ah inaan u sheegi jirnay mar walbaba harmacadku ma aha oo dad cid kastaba u sheega harmacadku dadka ma cuno waraabaha bay isaga dilaa waa sababtu harmacadku mar walbaba u nuguliyay caruurtiisa loo soo gurto duhurkii buu tagaa ugaarsiga marka duhurkiisa oo ka maqan ba caruurtiisa la soo qaata habeenkii hadduu ugaarsiga tagi lahaa lamaba qaateen xayawaankan iyo ilmihiisa marka huda ma harmacadka kaliya ay miyaa kan waxaan la tahriibinaya mise waxa jira noolayaal kale oo iyaguna saasoo kale dalka looga saarayo waqti xaadirkan in joogno isaga kaalinta koobaad haysta laakiin su'aashu waxa weeye ma isagun baa la tahriibiya macna la saaraa oo laga ganacsadaa ama la ugaarsadaa may xayawaano badan baa la ugaarsadaa oo baasheera ugu yeeray macooyada la yiraahdo maaragtay akhtarka taas xitaa ku jirto waxyaalaha la saaray oo niyo maxaa lagu falaa baasha dunidan dad badan oo yaab la ku nool qaarkood daawooyin bay u isticmaalaan xayawaanada qaarkoodna waxay u isticmaalaan waa dhaqasho harmacadkun baa imika number 1 ku jira caasha fadhiduna maalmaha la weyn haysatay si fiican caasha fadhida waxa jirtay 3 jeerba in la qabtay tiraba niman masaariya waliba lagu qabtay ma garanayo xukunno inaan la saarin bay u egtahay waayo
dhacdooyinka ugu badan ee dadka bulshaduna aanay mar walba isweydiiyeen waxaa ka mid a maxaa ka dambeeyey qofkii markii la qabtay marka dhacdooyin baa u baahan iyaga laftirkooda halkay ku dhammaadeen in bulshada laga wacyigeliyo in la ogeysiiyo nimanka masaarida ee halkan caasha barida usoo doontay maxay somalilan iyo caasha barideeda ku falayaan sidaan anigu dabagal badan oo sameeyey ku ogaaday caasha barida waxaa markii hore laga ugaarhsan jiray masar iyo suudaan oo suuqyo badanoo waxa la geyn jiray china jabaan iyo yurubta bari ayaa la geyn jiray suuqyadii masar iyo suudaan baa iminka soo gabaabsi noqday almacna waa la xaalufiyey marka xaggeennan baa loo soo jeestay baashan ugu badan la gurayaa waxay ku nooshay waqooyigeen khaasatan waqooyiga magaalada hargeysa sidaasay nimankan usoo noqonayaan mar walbaba ay ugu tijaabinayaan inay mar la gudbaan oo waa kuwan mar walba airportka maraya marka maalinba xayawaan baa gelaya kaalinta baahida dunidu u qabto marka maalinba mid baa laynoo soo doonanaya hooyada iyo aabbahay waxay iga sheekayn jireen gaclibaaxu libaax joogo madheero oo libaax joogo oo madheeriya abdaal uu libaaxu joogo dhowr iyo 80kii hooyadii marka aabbahay xabsiga ugu tagi jirtay allah u naxariisto libaax maroodi jeex baynu joognaa oo gobolka maroodi jeex taa macnaheedu waxa weeye waa dhulkii maroodiga marka gacan libaax maanta maroodina ma hayno libaaxna ma hayno harimacadun baynu haynaa marka taa aanu ka baqa qabnaa waxa weeyaan caruurtada iyo kuwaygu inay berit walo maqlaan uu sheekooyin harimacad laakiin ay harimacad arki waayaan gorgorka laftiisu waa sii dabar go'aya isaga laftirkiisu sii dabar go'aya laakiin jabnaayo kale taban laguma baraarugsana marka waxa u baahan wacyigelinta in la ballaariyo oo dadkeena casharo badan looga sheekayo xayawaanka ah kuwa inaga dhammaanaya mar walba dadka waxaan ka maqnaa xayawaan baa jira siiga la odhan jiray ma jira imika waxaa soomaalidu caan ku ahayd Somali wild aska la yidhaahdo ee gumburiga waynaga dabar go'ay waxa laga yaabaa haddii mid la baadhayn la soo helo deegaanada Somaliland ama aan laba soo helin waa layna dhameeyey waxaa kaloo xayawaanka saameeya dagaalada mar kasta oo dagaala dhacaan xayawaanka waa la waayaa way durkaan colaadaha ay ka cararaan wax badan oo imika Kenya haysto waxaan aaminsanahay inay dhulka Soomaalida ka yaaceen Ethiopia dagaal ka socda halka wax badan inay ka yaacaan ama inagayna soo galaan ama ay deegaanada kala galaan marka xayawaanku waa waxyaalo muhiim oo nolosha bini'aadamka waxyaalo muhiim oo jiritaanka inagu runtii suugaanteennana wadaga arkay sida qaniga ugu tahay marka xayawaankan aynu u haysano wax iska caadiya inaanu iska caadi naga noqono maantaba kuwan anigu laayahay aragtidoodii ee sheekadaygu ah inaanay jiilasha soo socdo sheeko ku noqonay inuu sii badbaadino arrimaha xayawaankuna ma galaan siyaasad waxaan jeclahay inaan ereyga aad ugu celceliyo arrimaha xayawaanka iyo arrimaha caruurta iyo xayawaanku waa isku mid weliba caruurta mararka qaarkood dee barata sida loo hadle waxaan ma hadli karayaan marka annaga waa tan 2 sannadood dagaalku nagu socday waa aamusnayn wax walba u qaatay inaan media uga hadal marar badan baan isla hadal oo xaaladuhu taagnaan oo igu adkeyd aniga inaan xamili kari waayo mararka qaarkood dagaalada qaar laakiin waxaan u xamilay waxa ahayd nolosha kuwan gacanta ku hayno jiritaankooda iyo in maadaama anagu hadafkaygu ahaa iyaga inaanu mar walbaba dagaal kasta oo nagu dhaca anaga iyo wax kastoo na soo gaadhay aanay leexin noloshooda iyada oo kuwan mar walba la soo taaganahayna ah runtii aad baan u xiiseynaya inaan arko buuggaas waayo wax badan baa ku duugan oo aanad caawa halkan ka odhanaynin marka aad baan u jeclaysanaya inaan dhowaan akhriyo haddii beedmo ugu dambeyn huda talooyin nooceeya ayaad kaga tegeysaa bulshada ama dhanka xukuumadda ha noqoto ama shacabka ha noqoto maxaad soo jeedinaysaa waxaan horta run ahaantii marka ugu horeysa u soo jeedinaya shacabka reer Somaliland meel kastoo joogaan inay iska kaashadaan badbaadada xayawaanka oo ugu sokeeyaan kuwa inala nool bisada inala nool ayda inala nool oo dadkeena aydu waa najasiya waa oskaga inta yidhahdaan baa la laayaa maalin kasta magaalo kastoo Somaliland dhex maraysa waxaad arkaysaa ay kasta lugtaa jaban caruurta laysa marka horta marka ugu horeysa in caruurtan colaada caruurta iyo xayawaanka la xaliyo taan waxa lagu xalin karaa qoys kasta meel kasta uu joogo iyo waalid kasta xayawaanka in la baro caruurteenu inay muhiimad leeyihiin shacabka reer Somaliland waxaan ka codsanayaa meel kasta oo ay ku arkaan xayawaan la bahdilayo ama xayawaan sifa sharci darro ah loo wato ama xayawaan dalka Somaliland laga saarayo inay hay'adaha ugu sokeeya amniga u sheegaan inay hay'adaha qoseeya u sheegaan anaga hadayna soo gaarsiin karaan inay noo sheegaan dowladda Somaliland waxaan ka codsanayaa in markasta danta xayawaanka la eego arrimaha siyaasadda laga reebo
danta xayawaanka iyo sidii ku badbaadi lahayn sida Somaliland sumcad badan bay usoo jiideen xayawaanku waxaan aaminsanahay waqooyiga Afrika oo dhan haddii la isku geeyo sanad wadanka ugu xayawaan ugu harimacadka badan hadda ku sugan inaynu inaga nahay taasaa runtii sharaf u noqon karta dowladuna hadday sidaa u fahanto dadaalada runtii dadku bixinayaan anagu bixinayn in ay ka faa'iidaystaan waxa kale oo runtii aan anu mar walba dareemaa markaan ku saleeyo traininadan ka qaatay Djibouti wadamada inala jaarka xayawaanka iyo deegaamada la ilaaliyo protected areaha Ethiopia Kenya markasta xayawaanku waxa maamula hay'ado madax banaan macna aan ahayn wasaarad Kenya Wildlife Authority Ethiopian Wildlife Authority like Djibouti qolada Dikamba u maamula marka haddii dowladda hadda joogta ay arrinkan danayso ama dowladaha ka dambeeya ba runtii waxaan soo jeedinaya in hay'ad madax banaan runtii hadday noqoto waxaan filayaa maanta halkii taagantay inay kor uga dhaqaaqayso inay Somaliland sumcad badan oo dalxiisku kamid ah waxaan daneeyo kamid ah Somaliland tan iibiyo dalxiiskan ku iibiya inay u soo jiidi karto arrintan waa haddii arrintan looga shaqeeyo sida ay tahay ay mudan tahay in looga shaqeeyo marka wada shaqeyn fiican baan runtii rajaynayaa iyo mustaqbal u wanaagsan xayawaanka Somaliland waan rajaynaynaa in talooyinkaaga la qaato kuwa xukuumadeed iyo kuwa shacabba runtii qof walibana uu dareemo ahmiyadda ay leedahay duurjoogta marka meelaha lagu arko hodheelada iyagoo iska dhex jooga aan loo qaadan wax caadi ah lala soo socodsiiya hay'adaha khusayso waliba kuwa dawliga gaar ahaan aad iyo aad baad mahadsan tahay Huda waan ku faraxsanahay hadiyadaad noo hadiyeysa anaga lafteeda koobkaas harimacadku ku sawiran yahay aad iyo aad gelinta ka qayb qaata waa ka qayb qaadanayna codka u baxa aad iyo aad baad mahadsan tahay thank you Allah ku sharfo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh